السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة سوري هذا أصحابته كل سوري هذا برنامج كيني أتحناها مايكروسوفت إكسل وأينو كي يجدونه مقال كان آتك وكوبا آتك وحسابا حلنا له مقال كان مقالكي أكوري وأينو كقص هذا اللي أقاب كله حريو النتيجة امتحان كعرضه مقالكي كوري وحين كسو صارني saddex maado oo aynu xareynay tusaale ahaan ardayda totalkooda averagekooda ama celceliska iyo wax loo yaqaano qof walba inta maado ee uu galay ayaynu soo saarnay. waxa aynu hadaba muuqaalkan ku eegi doonaa qaabka loo soo saaro a maximum value yani maadada ama qiimaha uu sareeya ee arday kasta uu haystaa, sidoo kale minimum ani maadada uu qof kasta ugu hooseeyo iyo waxa loo yaqaano resultiga qofkaasi inuu dhacay iyo inuu baasay inaynu eegno. hadaba waxaan ku horeyn doonaa maximumka inaan soo saarno arday kasta maadada ugu sareeyo ee uu haysto. kadib waxaan leenahay equal inagoo tagi doono maximumka hoostiisa. kadib waxaan isticmaali doonaa function loo yaqaano maxay max. fadlan haddii aan casharada soo daawo equal max baan leenahay. marka xagee laga raadinayaa qiimaha ama maadada ugu sareysa? waxa laga raadinayaa intii maado ee la soo xareeyay. marka waxaanu highlight saari doonaa equal marka leenaano max of function name ka aan qorno waxaan leenahay qows ayaynu furanaa. qowska markaan furno halkan waxaa geli doonaa arguments ama values baa gelaya. kadibna halkan waxaan highlight saari doonaa maxay intii maado ee aynu soo xareynay. kadibna qowska ayaynu soo xiranaa. marka maximum ku waa maxay? waa maadada ugu sareysa ee qofkaasi uu haysto ama ardaygaasi uu haysto. tusaale ardaygaasi wuxuu haystaa maxay laba maado ba galay, midna wuxuu keenay 20 midna wuxuu keenay 100. maadada ugu sareysa waa 100. marka waxaan leenahay equal kadibna waxaan nidhi max kadibna waxaan nidhi waxaan la saarnay laga bilaabo F6 ilaa iyo maxay H waxa loo yaqaano 6. kadibna waxaan leenahay enter. marka qofkaasi maadada ugu sareysa ee haysta waa imisa? waa 100. minimum ka aan eegno hadaba maadada ugu hooseysa ee uu haysto waa inuu yiraahdaa maxay? waa 20 tusaale. kadib waxaan leenahay equal kadibna function name waxaan leenahay min oo u taagan minimum. kadibna qowska aynu fureynaa. kadibna waxaan highlight saari doonaa maxay intii qiime ee aynu soo xareynay ayaynu highlight saarnaa ama intii maado ee qofka loo xareeyay baynu highlight saarnaa. kadibna qowska ayaan soo furanaa. kadibna waxaan leenahay enter. marka qofkaasi maadada ugu sareysa waa 100, maadada ugu hooseysa waa imisa? waa 20. boqolku waa islaamiga, carabigana wuxuu haystaa maxay 20, soomaaligana ma gelin. result waa maxay? waa miyuu dhacay mise wuu baasay inaan eegno ardaygaas. marka waxaa lagu xirayaa average ayaa lagu xirayaa. conditionkan waxaa lagu xiri doonaa maxay? average-ka. tusaale waxaa la leeyahay qofkaas haddii boqolkiiba 50 uu keeno wuu baasay, haddii uu keeno boqolkiiba 49.99 na wuu dhacay. waxaan leenahay equal kadibna waxaan leenahay if waa maxay? waa haddii qows baynu markaa furaynaa. average kan dooranana oo ku jira maxay? J6. kadibna shift iyo calaamada ka weyn noqonana oo ka weynaado 50 hakad. ama waxaan leenahay haddii uu la mid noqdo 50 ama ka weynaado 50 ama la mid noqdo 50 baan leenahay. haddii baan nidhi maxaan nidhi average-ku uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 50 hakad maxaa dhacaya? marka waxaad sameynaysaa waxaad furaysaa double quotation ama laba dhibcood. waxaad leedahay tusaalahan kale pass baad leedahay ama waxaad leedahay maxay waxa loo yaqaano pass baad leedahay tusaale. kadibna laba dhibcood hakad. means waxa weeye haddii average-ku uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 50 hakad. kadibna conditionkii statementkii waa la testgareynaya waa la eegayaa. marka haddii uu ka weynaado maxaa dhacaya? waxaa la soo akhrinayaa maxay ama la soo saarayaa qoraalkan wuu baasay. haddii kale maxaa dhacaya? laba dhibcood. waxaan leenahay failed. kadibna waxaan leenahay laba dhibcood. kadibna qowskii ayaynu ku soo xiranaa. kadibna waxaan leenahay enter. kadibna waa maxay? qofkani waa failed sababtoo ah average ku haysta waa imisa? waa 50. okay ardada kale si aynu saarno average-ka, countiga, maximum-ka, minimum-ka ilaa resultka highlight baan saaranaa sida caadiga ahayd. kadibna hoos ayaynu usoo jeedaynaa. okay marka qofkan isagu wuu baasay sababtoo average-ku imisa? waa 56. qofkan wuu baasay sababtoo average-ku imisa? 53. labadana way dhaceen. midna 16 buu haystaa, midna muxuu haystaa 20. marka imika waxaan baranay qaabka loo soo saaro waxa loo yaqaano maximum-ka maadada ugu sareysa, minimum maadada ugu hooseysa iyo waxa loo yaqaano inuu baasay
iyo in kale tusaale haddii halkan ka dhigno conton tusaalahaan kale aan ka dhigno average-ku iyo totalki waxay isbedelayaan wuxuu noqonayaa 56 qofkaas automatically sidaas ayuu ku baasay muuqaalkan wuxuu xiriir leeyahay muuqaalkii hore oo aan ku soo saarnay maxay totalkii wadarti guud celceliskii iyo intii maadada uu ardaygaasi galay insha Allah inta aynu muuqaalku xiga kulmi doono oo anigoo macallin Ismaana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala